yeeshine taasina ay u darnaa doonto dalalka reer galbeedka ee markaasi sanka isku hay ama dheega isku hayaan xuduudahan dalka Turkiga. Daawadayaal, dalka Soomaaliya waxaa si rasmi ah maanta uga hirgalay qaraarkii ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaadhay golaha wasiiradu dhawaan in ay joogsadaan ama la joojiyo dhammaan duulimaadyada imaanaya dalka. magaalada xarunta ee Xamar oo ay imaajireen duulimaadyo kala duwan oo caalami ah oo ka kala imaajireen magaalooyinka Nairobi, Addis Ababa, Istanbul iyo dalka Qatar iyo waliba meelo kale ayaa gabi ahaan la joojiyay isla markaana aysan jirin wax diyaarado maanta soo degtay. Warar ay horfadhi media helaysa ayaa sidoo kale sheegaya in duulimaadkii shirkadda diyaaradaha ee laga leeyahay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ee Fly Dubai la dhaho ay isku dayday in ay soo caga dhigato magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland, taasoo la sheegay markii hawada soo gashay in ay la hadleen maamulka hawada sare ee Soomaaliya ee xaruntooda tahay magaalada Xamar, kuwaas oo uu digniin u diray inay noqoto ayadoo la sheegay in hawada dib looga celiyay. Wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan inay tani ka mid tahay talaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku xaqiijinayso lahaanshaha iyo xukunka hawada dalka Soomaaliya sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan waaxda aviation-ka ama waaxda arrimaha hawada ee dalka Soomaaliya. Goorsi horeysay ayaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in aan la ogolaan doonin wax duulimaad oo yimaada. Sidoo kale diyaaradihii mukhadaraadka qaadka sida daran wax u yeelaya umada caafimaadkooda ayaa la sheegay iyagana in aysan maanta imaanan qaarkood, ayadoo wararka ugu dambeeyay sheegayaan inay taasi muujinayso horumar laga sameynayo dhinaca marka ay timaado xakamaynta dalalka loo tuunsan yahay in xanuunku ku baahiyo ay ka mid yihiin dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta, Kenya oo xanuunka dad u soo ritay, Ethiopia qaar ka mid ah iyo sidoo kale dalalka dunida. Laakiin arrintan ayaa waxaa sameeyay dunida oo dhan ayadoo aysan dunida jirin diyaarado caalami ah oo dalalka soo kala gooshaya si loo hubiyo badqabka dadka, waana mid ka mid ah